si ummadihii tagay oo ayaga ka horeeyay masiirkii ay mareen iyo kuwii ayaga ka dambeeyay jidkoodii maray halkii ay ku dambeeyeen ayaga laftirkoodii haddaynan ka waantoomin ummadahaasi meesha maray waddadaas ay mari doonaan kana sababtoo ah kama fadli badna mana ka wanaagsana. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلنتي وعن داود ديال وحان كسو دحجرني برنامج كيني رمضاني أها أو مقعدرني إسويديمها قرآنك القرآن يتساءل وحان هبين والبا دولستاكو سمينيني آيات أما دور آيادود وكمد قرآنك كواسو كو إيماني هب سؤاله سؤالها سو مركا مدن إن لغو فكره لغو تدبره وحبضن لغلا دحبحو حلقة لباتني كواد برنامجك وحامرتي إيواه إنجنير قاسم محمد بارو إنجنير سودو وحدوه شكرا جزاك الله خير إنجنير عاو آيادها إنه قلت لك شيء إنان مارتي دول استاقنو ضمن برنامجك إنان نسودي مها قرانك. بسم الله الرحمن الرحيم. واد محسنتهاي ولالو aayadda aan maanta ku talgalnay oo in barnaamijkan inaan kusoo qaadan ay tahay waxa weeye aayad ka hadlaysa oo Allah subxaanahu wa tacaala nooga hadlaya ummadihii tagay oo Allah iyo rasuulkiisii xaqa ku kufriyey xaqa beeniyey wixii ay la kulmeen iyo meelihii ay ku dambeeyeen. marka aayaddaas waxa weeye acuudu billaahi min ashaytaani arajiim أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيضا الله سبحانه وتعالى وهو كبلابي إسويديمه وعنان iyo ceebeyn iyo inkiraad ah si dadka indhahoodii loogu soo jeediyo sunnada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo sugan aanan isbebedelaynin qof kasta khusaysa qof iyo ummadna aanan ugu geedkan u xaglinaynin jiilna aanan u madax salaahaynin. aayaddaas waxay kala tusinaysaa dadka u jeedinaysaa inay ku fakeraan ummadihii hore tagay iyo meelihii ay mareen iyo meelaha ay laftirkoodii u safrayaan inay ku fakeraan si ay ugu ibra qaataan ummadahaasi hore tagay. aayaddaasi intaas ka hadlaysa guud ahaan waxaan u qaybin karnaa aayadda 3 qaybood. qaybta koowaad waxa weeye awalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim. aayaddan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu tilmaamayaa ama ummadii hore u soo jeedinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadihii allah iyo rusushiisii ku gaaloobay hagee ku dambeeyaan, maxaa ku dhacay, cadaabka ku dhacay iyo argagaha ku habsaday iyo dhabarjabka ay la kulmeen ummadahaasi. waxaa kale ayaddan tilmaamaysaa dadka inay dib u fiiriyaan ummadihii hore tagay yacni mataqaanaa ummad duugowday iyo qaar mataqaanaa halaagsamay iyo guryo baaba'ay si dib ay ugu cibri qaataan. qaybta kale aayaddan waxay kale ka hadlaysaa oo dadka ugu baaqaysaa inay allah subxaanahu wa tacaala sunnadiisii ay ogaadaan ay fiiriyaan ummadahaasi oo masiirkoodii meeshii uu ku dambeeyey oo ummadahaas ilaahay ku gaaloobay masiirkoodii meeshii uu ku dambeeyey ilaahay sunnadiisii isma bedesho mana ku dhisna hawo oo hawada isbebedesho. taas ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka sareeya oo waa ka fog yahay waana ka nasahan yahay. marka aayadahaasi taasi bay dadka ugu baaqaysaa. waxay kale aayaddan tilmaamaysaa dadkani allah subxaanahu wa tacaala beeniyey oo hadda jooga inay fiiriyaan oo dib ay u fiiriyaan una socdaadaan socdaal oo cibro leh si ummadihii tagay oo ayaga ka horeeyey masiirkii ay mareen iyo kuwii ayaga ka dambeeyey jidkoodii maray halkii ay ku dambeeyeen ayaga laftirkoodii haddaynan ka waantoomin ummadahaasi meesha maray
wadadaas ay mari doonaan kana yani sababtoo ah kama fadli badna mana ka wanaagsana oo ummadahaasi wax ay kaga duwan yihiin inaynan jirin. جزاك الله خيرا إنجنير سات المامتي فعلا سنة ثابتة وإلهي سبحانه وتعالى ودجيها جرته أو مركز تودتكو إلهي سبحانه وتعالى ودديس أي كل حدان ويكو أتكيستان بادلك إني هلاك أي أودن بين جرته مارت وسنة ثابتة إلهي سبحانه وتعالى وحسوسنا مد مارت وحوليها قد خلت من قبلكم سنن مقرات سنن بعدين كهر مرتي وثابتة ساس بيكسو عن جرتي مركز مارتي ثابتة بإهلاك المارتي المكذبين مقرات تتكستو إلهي حقي ديدة أو مارت رسوشي بينية أو كو أتكيستا مارت بادلك إلهي سبحانه وتعالى إنه هلقي جري مارت قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين مقرات كتأمل كبراروغا هسوع لنينا ماركا ودداس إذن كان هذا كسعتان جيت كاسات ماري دونتا لأنه سنن وثابت مارت بل انت إلهي سبحانه وتعالى ومارتي دافيو انت إلهي كادينيو مارت وكادينا يا آد فربنا هدي إلهي سبحانه وتعالى الدنبيك سيدا لوغل مضاه إلهي وقبن لها أحبت بادي لها من المارت ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وحدتك أي مارت الدنبيك قلب سنة هدي إلهي سبحانه وتعالى سيدا وقبن لها دول كان مارت عندكم مصوهرين مارت ولا وذا هلاق لها مارت ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إن بدن بإلهي سبحانه وتعالى كاذين يا وسوق يا مارت ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حليه مارت إلهي سبحانه وتعالى دي هذا المعني سويهاي ودتك أقبل لها خلتك سيدي وقلايان وقبل لها يعني مارت عذابك وحقار لها مسامين لها حتى مارت الجعلان في جحرها مارت دورشان كاس مارت قد كيس سر وكجرو بعدبك كوغار لها مارت ولا أمسكت الأمطار مارت روبك استاجي لها أو دوابتي مارت كل ما الله كباب لها إلهي سبحانه وتعالى لكن وحكل ما عمل يحبذان وعفسه وحبذان وفضله مارت لكن دتكي با كبر كود مارت ظلم كود مركز الله نعمه مركز الله كهذه إلا من رحم الله إن أنت سي كبران سي قوقان با مركز دنبه وحا إيماني أجلك لو تلقلي مركز إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيس مارت ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين لا علم ما يمركز صدقاقه أمرك إلهي أهرقله وحمرك على علنا يمجرد قيبتك لا آيات دان قلنا وحوية كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها آيات دان وحي تلمام يسا ومدهاس أو إلهي سبحانه وتعالى هلاقي إني أمدان أي كحوق بدناين أو كقوة بدناين أمد كون كان عمري وحكستنا كو عمري هدي أهان لهيد دسمو ورشدو إيو متغانا بيرو واوين أو لفلو وبيال أو لسميو مرن بيديو لسميو إني أمدان أي كحوق بدناين أمد داس وحي لسي مانتو أمدان مركي لو فيريو يعني تومن جبار كيدي بي كسريان آد بي وحوق بدناين تاس أي تحي هدنا أمداس إلهي سبحانه وتعالى مركي أي حد قدبين أو أي طريق إلهي أقوتها لقلي أي كبهن الله سبحانه وتعالى وهلاقي أمد كسته أو إلهي سبحانه وتعالى أبو رينا إلهي أودي كمصر بدنا حدي وحدك أي دافان ومدها سي لو هلاقي مركي أي حد كدافين أي لو هلاقي جزاك الله خيرا أمثلة بدنا مركا يعني أركينا يعني مدى هذا القرآن كم كوسو دقاي عربتا يجوغي waxa ay haysteen marka loo fiiriyo madii ka horeysay tilmaamta yani aan wax la isku soo qaadi karaan jirin haddaan soo qaadano مثلا faraacinada oo ilaa yoomina hada si kasto bani'aadamka cilmigiisa u hormaray ay la yaabihiin xadaaradii ay haysteen iyo waxa ay sameeyeen iyo haramaadka ay dhiseen ay la yaabihiin maalinta yani madii kale ka horeeyay caad iyo thamuud iyo haddaan fiirino ilaahay subxaanahu wa tacaala xadaarad cajiiba yay lahaayeen magarata qaar baabuurihii qusuur iyo guryo ka dhistay oo inta qodeen maaragtay yani daara ka dhistay magarata tanxituuna aljibaala buyuuta waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay laakiin allihii abuuray oo awooddaasba marka hore siiyey
يعني markuu doono in maaragtay sunnadiisa ay ku hirgasho inuu halaago waxba uma tarin maaragtay ilaahay subxaana watacaala arrintaa tilmaamaya wuxuu leeyahay wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha maaragtay ummado kuwan ka awood badan saada tusaalooyinkaa soo qaadanay iyo ilaahay subxana watacaala hore u halaagay maaragtay fanaqabuu fi lbilaadi hal min maxiis wax alla waxay xadaaro lahaayeen wax alla waxay awood lahaayeen ma garat wax alla waxay xiilad lahaayeen waxba maaragtay uguma aynan tarin in ilaahay subxaana watacaala cadaabkiisa ay ka hor istaagto maaragtay maxay ahayd faahlaknaa ashadda minhum batshan waa ilaahay subxana watacaala meel kale ku leeyahay wamadaa mathalu lawaliin saasay sunnooyin ku socon jireen saasay arrintu ahaan jirtay mar kastoo ay dadku ilaahay subxaana watacaala nidaamkiisa ay ka leexdaan oo ay baadilkaasi ku adkaystaan waa la halaagi jiray maaragtay oo ay arrinta ay ku hirgasho ay ku xaqiiqowdo ficlan marka kuwa hadda jooga saa tilmaamaysa iyadana يعني ما كفل بدنا كواسي مارتي ما أنا مارتي كأود بدنا ما أنا مارتي إلهي سبحانه وتعالى كجا مارتي وحو إلهي كلنا يقولوا دينا هاي ما جرت مارتي أعيد غيبتي هذا كله دان سوق هذا وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أيضا وهي الماميسة إلهي رسوشيسي وما ذهن إن إلي ماذين aayado cadcad oo aan mugdi ku jirin laakiin nasiib daro dadkaasi aayadahaasi nuurkoodii qalbigoodii uma dusin kama aynan faa'iidaysanin kufrigoodii iyo baadilkoodii bay ku adkaysteen taasi waxay keentay in allah uu subxaanahu wa tacaala uu halaago alle ma dulminin laakiin ayaga ayaa jidkii alle aan raalli ka ahayn qaadeen sidaas bayna halaagaas ku mutaysteen jazaaka allahu khayran القاسم يعني runtii aayaadkaasi aad dul istaaga ku sameynay maanta aan daraasadeeda ku sameynay waxay mudan yihiin in wax badan lagala dhex baxo daawadayaal yani waxaan arkaynaa mudnaanta ay leedahay in aayadaha qur-aanka la dul istaago oo maaragtay wax badan la dhuuxo macaanidooda waxaan arkaynaa in ilaahay subxaanahu caza wajal uu noo caddeeyey sunantiisa fi hada alkown sunantiisa fi tacaamuli maca almukadibiin waxaa muhima marka aayaadka qur-aanka in khaasatan kuwa wacdiga iyo waciidka ay ku jiraan oo ilaahay subxaana watacaala marna uu ballan qaadayo yani wanaag iyo khayr mid adduuniya mid aakhiro marna ilaahay subxana watacaala uu goodinayo uu ugu goodinayo dadka waddada ka leexanaya maaragtay waxa ay mudnaanaya ilahay uu tilmaamayo in aada loo dul istaagaa mudan magarate liannahu haddii dadku ay ku adkaystaan xumaanta haddii ay ku adkaystaan ka leexashada waddada alla subxaana watacaala يعني وقتي بدن بقى إلهي أسوقي سان صوت المامنة وقتي بدن بقى الله سيت دارينيا ولا وانينيا وحبنا الله تلماميا لكن هدي ما عرفت انحراف بوسا كسي صعده إلا ما عرفت غضبك إلهي سبحانه وتعالى لما تيسته مركزنا غضبك إلهي ما عرفت يعني وسودقه يعني لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ما لا علينا يا مال أما أن غضب على صعيد الفرد أما على صعيد الأمة يعني وأرين مركز مهمة إن آد الله ده هذا ما عرفت أريماسي وأنا وحاول إلهي سبحانه وتعالى أنه قلت الماما إلهي ومدين كوري فيريا دراسية كفكرة أنت أسأل إن شاء الله وحلقة نعاو كيسانينا أنت أنا حلقة كلا وبرنامج كان كمل أنكم كل منه وعن إلهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.